بسم الله الرحمن الرحيم. هلك هذه يا نعم رايح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوانك برلمانك حلدوانada مرشحينته مقصودة كلو شوفته beesha saxaafadda ciidamada dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan ka bacdi way taqaanaa marumare aniga kitaab qaataa la yidhahdaa kitaabkaasaan wataa wax kaloo aan ku dhaadanayo oon ku loobigaraynayaa ma jirto. cabsida ilaahay iyo kitaabka qur-aanka wax kale oo Soomaali maanta isu keenaya ma jiraan. arar badan ma samaynayo, waqtigu way iska ciriiri. waxaan aad iyo aad uga codsanayaa xildhibaanada inay kitaabkaas ansito igu doortaan. asagaan ku dhaqmaynaa, asagaan adduunka ku hodmaynaa, asagaan aakharana cibaado iyo camal sanba ku helaynaa. aad iyo aad baan maaragtay ka mahad celinayaa sida aad maaragtay ii dhegaysanaysaan. iyo waxaan kaloo rabaa inaan dib ugu laabto, war kitaabka haweenkaad ku dhaarateen ramadaanka waa xasuusataa. qof kaloo kitaabkaasaad ku dhaaratay haddaad ag martana khayr ma helaysid baan u malaynayaa. walaalayaal ku dadaala oo ila qaada oo dawlad kitaabkaa ku dhisan inaan sameeyaan rabaaye walaalayaalow ila qaada oo dalka igula dhisa. intaas ayaan idinka codsanayaa horta marka ugu horraysa. marka labaad waxaan rabaa inaan sheego ummadda Soomaaliyeed waa ummad kulligeed islaam ama muslim, boqolkiiba boqol weeye. way ku dhaqantaa oo dhaqanka ummadda Soomaalidu waa shareecada islaamka. shareecada islaamku ma aha in la soomo salaada la tukado xajka la aado keliya. waxaa weeye in lagu dhaqmo in ilaahay wuxuu noo diray keliya aan samayno oo adduun iyo aakhiro wax naanfacayo. aynu ku degdegno, aynu ka shaqayno in aanu ilaahay ka cabsanno, ilaahay jeclaanno, asaguna aakhiriya adduunya waana jeclaanayaa. cibaado iyo camal suubanna waan helaynaa, adduunkana waan ku hodmaynaa. waxaan rabaa inaan sheego ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa ugu horeeya cadaaladda. cadaalad shareeca islaam baa leh. amni shareecada islaamkaa keento. horumarka shareecada islaamkaa keento. xishoodka iyo wada socodka iyo walaaltinimada shareecada islaamka iyo diinta islaamka iyo kitaabkay ku taallaa. innama almu'minuuna ikhwa, ilaahay baa yidhi in aan raacno oo kitaabka ilaahay aayaddaa ku jirta inaanu raacno, kulligan walaalo noqonaan rabnaa. ma rabna inaan qabiilayno, ma rabna inaan diintii falsafad kale u samayno oo la yidhaahdo maaragtay islaax iyo hebel iyo kan iyo ahlu sunna iyo waxa oo kulligeed iska soo horjeeda. diinta islaamku sidaa maaha. walaalayaal waxaan samayn doonaa maxkamad shareecada islaamka ku shaqaysa. wixii kaleoo sharci ah oo imaanayaana middaa unbay ka tisqaadayaan oo ka dhaqaaqayaan. haddii aan dib u raaco shareecadana islaamka iyo maxkamadaha islaamka ah, waa dhammaantood dastuur kastoo aan leenahay iyo sharci kastoo aan leenahay waxba yaan maaragtay ma aha wax cusub. had iyo jeer waxaa ku taallay in la yidhaahdo wax allaaliyo wixii shareecada islaamka ka soo horjeeda waa baadil. wax kastoo sharciga aan samaysanay saasay ahaan jirtay, laakiin laguma dhaqmo. hadda inaan ku dhaqanaan doonayaa. haddii aad doorataan xildhibaanow, waxaan ballan qaadahayaa inaan shareecadana hirgeliyo, kitaabka ilaahay hirgeliyo, diinta islaamka oo la baabi'iyey soo noolayno, axsaabta ka dayno, inaannu isku
كل جيو isku hal diin isku hal mabda iyo diinta islaamka oo dhaqankeena ku jirta inaanu ku isticmaalno ayaan doonaya waxaan samaynaynaa fatwa waxaan isiin doonaa culummada kala tagtay waxaanu isu keeni doonaa oo quweyn doonaa hataa mucaamadaha qur-aanka inaanu kobcinno oo u samayno guryo oo u samayno sawirado iyo foom ay ku bartaan wax macallimiinta dugsiga qur-aanka oo boorka iyo calalada carruurta ku qaabisha waxaan rabnaa inaanu mushaar u qorno oo aanu sida kor u soo qaadno haddaanaan diinta islaamka kor u soo qaadnin dal islaamana sheeganayno wax fiican maaha xaqiiqada ammaanku dalkan wuxuu leeyahay in ka badan 40,000 oo ciidan waana ognahay waxa ay qabtaan iyo sida xaalku maanta yahay inaan xataa caasimadii aan joognay inaan amnigeeda sugnay waan ognahay waxa ka dhimanayna waxa weeye ciidanka oo sidii ay ahayd aan loo isticmaalo ciidanka waxaa la rabaa in sidii ay loo isticmaalo shaqada qaranka oo keliya ciidanku istaaf ma noqon karaan qabiilna ma noqon karaan guruub ma noqon karaan siyaasadna ma raaci karaan intaa haddii laga saaro waxaan helaynaa ciidan tayo leh oo nidaamsan oo aanu u dirsanno difaaca iyo amniga dalka gudihiisa inaan habaynaa loo baahaya ciidamada oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ka dhigno si ay ayaga laftoodu isu bartaan una wada shaqeeyaan in galashadooda iyo tayadooda ciidamada la kordhiyo tababar xoogla la siiyo wacyigelin ku salaysan waddaniyadna la baro qabiilka laga saaro guruubiska laga saaro siyaasaddan laga saaro ciidanka loo baahaya markaa unbay shaqayn karayaan dhanka oo siyaasadda inkastoo siyaasaddu ay iska noqotay wax baahsan oo si walba loogu isticmaalo haddana inaan muhiimadda saaro ayaan doonayaa in dawlad dhab ah oo xaqiiqo ah oo ku shaqaysa sistamka dawliga inaan dhisaan doonaya waxaan rabaa in ay shaqadu kala soocan tahay madaxweyne wuxuu leeyahay balaan guud wasaaraduhu waxay leeyihiin balaan u gaara waxaa fuliya oo hawshaa qabta waxaa ugu horreeya agaasimayaasha hoose shaqaaluhuna way fuliyaan intaa haddii la isu soo dhaafo oo wasiirka iyo madaxweynaha iyo shaqaaluhu ay isku hawl noqdaan waxba shaqayn maayaan waxa najeeyo halkaan leeyana waa intaa in la dardargeliyo kaabayaasha iyo waxaa loo baahan yahay inaannu xagga siyaasadda aanu walaalaheenna somalilan u gurguuranno u tagno u soconno soo dhowayno waxa ay tabanayaanna si fiican u ogaanno والله inaanu wax isu quurno isuna tagno wada hadallo waan heshiinaynaa waan hubaa hirgelinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaan leenahay dal qani ah oo wax walba haysta oo xoolo iyo kalluun iyo beero iyo macaadin wax walba haysta ayaanu waxaan u baahannahay inaan wax ayaga kaashanno ma rabno inaan mucaawano istugsanno ma rabno inaan beel caalam lacag ka sugno ma rabno inaan isku hadlayno dad aan meelnana gaarsiinayn ma rabaan dadku inaannu ka baxno faqriga
ma rabaan inaannu ka baxno sida aan ku jirno walaaca oo maaragtay isku reebreebka ah isku aan la rabo inaynaan waxba qabsan oo aan iska soo jeedno weligeedna saa u walaaqno qabiil u kala baxno maya waa inaan wax yaga qabsannaa oo kalluunkayaga iyo xoolahayaga iyo beerahayaga inaannu ka shaqaysanno wey ayagaa nagu filan ayagaana naga badan aniga haddaad doorataan oo aan madaxweyne noqdo waxaan ballan qaadayaa in badan in laga maarmo mucaawano adduunka laga doonto dayntaa gubno hantideedaan la soo baxaynaa isaga bixinayno uma baahnin inaan marba meel ku dhacno uma baahnin inaan gacmaha hoorsanno uma baahnin dadkayga bannaanka jiroo ku lumay inaan soo ceshanaan rabnaa waa maan baawarkaygii iyaga ayaa noo shaqaynaya oo dalkeenna wax fiican gaarsiin doona isla xisaabtanka waxaan rabnaa inaan samayno isla xisaabtan dhab ah halkaa waxaan dhigay inaan la xisaabtamin war qofkii aan lala xisaabtamin wuxuu doonu samaynayaa ilaahayna ka baqayn waannu xisaabtamaynaa si cad baana loo xisaabtamayaa baarlamaanka iyo cadaaladuna waa kuwa xisaabta u horreeya waa inay xisaabta iyagu dabagalaan waa inay ka shaqeeyaan waa inay wax soo saarkooda iyo cidda wax loo diray inay shaqadii qabatay iyo in kale cidda ogaanaysaa waa baarlamaanka waa xisaabiyaasha guud waa auditoriska waa dadka wixii wax garanayoo dhan inay arrintaa wax ka qabtaan weeye waxaan ku soo gebagabaynayaa xildhibaanada sharafta leh oo aan ka rabo inay doortaan waxaan u soo jeedinayaa aniga mabda'aygu waa kitaabka ilaahay baan rabaa in laygula dhaqmo kitaabka ilaahay baan rabaa inaan ku shaqeeyo kitaabka ilaahay baan rabaa inaan dowladda ka dhigo wax kale oo soomaali maanta ururinayaa ma jiro mid labaad waxaan idiinsii sheegayaa dalkan soomaaliya la yidhaahdaa waa xaruntii islaamka haddaad maqli jirteen islaamku xoog laha imaanaya halkuu ka bilaabanayo waa halkaa waa soomaaliya ayadii baan ku talagelaynaa ayadii baan ogaanaynaa inaan maaragtay la shaqayno oon ku shaqayno oo ku geesinimo gallo inaan meeshaasi noqoto caasimaddii islaamka adduunka inaan noqonno soomaaliya haddaan nahay intaasaan rabaa inaan ku shaqayno diinta islaamka waxaan rabnaa inaan ku dhaqanno inaan horukacayaga iyo wax kasta ku samaysanno waxaan doonaynaa inaan ku dhimanno taas markaan ku dhimanno ayaan aakharana xasanaad helaynaa iyo ilaahay naxariistiisa adduunkana aanu si fiican ku noolaanayno walaalayaal ila qabta oo ila qaada oo igula dhaqma oo aanu doorta si aan dowladda islaamka u dhisno kitaabka ilaahayna kor ugu qaadno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu